kulanti wacan asxaabay kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay bal waxaan eegi doonaa saaxiibayaal waxyaabaha ay wargeysyada caalamka ay ka qoreen saaxadda kubadda cagta muuqaalkeena waxaanu ku eegi doonaa Barcelona oo shaacisay heshiiska Gavi, Liverpool oo qarkood saaran ay kansasho heshiiska Artur Melo, sirta ka dambeysa wacdaraha Valverde. sidoo kale waxaan eegi doonaa Liverpool oo hogaaminaysa baacsiga lagu jiro Bellingham, UEFA soo saartay kooxoonka xidig ay ugu fiicnaa toddobaadkani iyo wararkii ugu dambeeyay. muuqaalkeena intaana bilaabin saaxiibayaal like saara siina share gareysa asxaab badan oo gaaro haday tahay markii ugu horeysa aad soo booqatana fadlan rukumo oo kambalelkana furo saad la socoto wararkii ugu dambeeyay dhaqaaqa suuqa kaliibsiga iyo waxyaabaha ka cusub kooxdada. marba soo dhawaada saaxiibayaal hadaynu ku bilowno Barcelona ayaa waxay goordhoweyd shaacisay oo ay soo bandhigtay heshiiska Gavi oo maalmihii ugu dambeeyay waraxan ay sheegayeen in laacibkani uu heshiis waqti dheer ah uu saxiixay doono kooxdiisa Barcelona ee ka soo baxay kuliyadaasi La Masia. goordhoweyd waxay Barcelona ay shaacisay in heshiis la gaadhay xidigaasi da'da yar ee sanadihii ugu dambeeyay aynu ku arkaynay shaxdaasi kooxdaasi Barcelona. Gavi waxa uu la gaadhay kooxdaasi Barcelona heshiis uu kula sii joogayo ilaa iyo 2026 waxaana lagu xiray heshiiskani in kooxdii soo dalbata inay iibsato Gavi inay bixiso 1 bilyan. وانا xidig runtii khad dhaxay aad u cajiib ah oo mustaqbal ah oo kooxda Barcelona ay rajaynayso sanadaha soo socda ay ku maamuli doonto dunida. waxay leedahay kooxdii doonaysa Gavi 1 bilyan ee miiska saarta hadii kale wax wada hadal ah lama furayo. Liverpool ayaduna waxay qarka u saaran tahay inay kansasho heshiiska xidiga amaahda ay kula wareegtay habeenkii ugu dambeeyay suuqa xirmaya deadline day-ga Artur Melo وانا arin mardhow soo ifbaxday waxaan leeyahay Klopp ayaan ka helin laacibkaniyo waxa uu leeyahay runaantii xidigana kuma soo baxayaba qaab ciyaareedkayga. waxaan laga yaabaa in arintaasi ay sabab noqoto in Liverpool ay kansho laacibkani ay sanadkii ay kula soo wareegtay habeenkii ugu dambeeyay heshiiska amaahda. soo kale waxa jiray dooqay laacibkani kula wareegi karaysa hadii ay ka hesho laakiin waxa uu leeyahay imikaabay doonaysa Liverpool inay kansasho xidigay hore ee kooxdaasi Barcelona ayaa sanadii ugu dambeeyay aad buu dhibtoonaya kooxdiisa cusubna waxay muuqataa inaanu wax fursad aanu ka heli doonin wana xilli aanay u baahnay kooxdiisa hore iyo Juventus xidiga reer Brazil waa dhibtoonaya. Liverpoolna waxa leeyahay waabay kansali kartaaba Kloppna waxa uu leeyahay laacibkani qaab ciyaareedkayga kuma soo baxayo. Manchester City ayadu waxa ay barbaraysay kulankii xalay ee Borussia Dortmund ay comeback ku sameysay 2-1 ay ka badisay record u xirnaa kooxdaasi Chelsea oo ahaa inaan 12 kulan aan laga badin gurigeeda championka. City waxa aan gool darba aan laba kulminba 12 kulan oo championka ay ku ciyaartay in gurigeeda Etihad Stadium. runtii waxaan ay barbaraysay sidaas ay ku barbaraysay recordkaasi ay hore haysatay kooxdaasi Chelsea imika waa la barbaro oo waa barbaraysay hadii al kulan oo dambe ay badisana sidaasi waxay ku jabin doontaa recordkani u xirnaa kooxdaasi Chelsea. Haaland runtii waa sababtan ku leeyahay ninkan waa machine goolasha dirto waxa muuqatay inuu laacibkani hortaanigii aamin Haaland xidiga fara badan horta waa ceebeen doona dirto waxa u soo dhigtay inuu jabiyo hadaba isagoo kulamo yar ciyaaray laacibkii wanaagsan kooxdaasi Barcelona ee Suarez ayuu soo dhigtaybo kaliya hal gool baa uga dhiman inuu jabiyo goolasha uu ka dhaliyay championka. Suarez waxa uu dhaliyay 27 Haaland oo 22 kulan ciyaarna 26 gool buu maraya. runtii rag waaweyn oo nawaalayo imika oo xidiga waaweyn oo lama taabtaana ah runtii ninkan waa ceebeen doona goolkii waxa dhaliyayna kubad madax lagu gaari waayba lagu tiigsanay. runtii ninkani xidiga fara badan waa ceebeen doona waxaanu noqon doona runtii xidigaha bedelaya Lionel Messi waliba Cristiano Ronaldo sanadii ugu dambeeyay ku soo tartamayay kubadda cagta. Haaland iska sug wax yar samir waxa arki doonta isagoo waxyaabo aan aqli gal ahayn ka sameynaya kubadda cagta. waxa la soo bandhigay sirta ka dambeysa in Valverde oo kulmadii ugu dambeeyay wacdaray sidoo kale waxa arkinay kulan horyaalka liiga oo gool fantastic oo dhanay oo Maradona kulankii xalay oo kooxdiisaasi Real Madrid oo runtii la gacan sareeyay oo kaga furfuray goolka koobaad. Ancelotti ayaa waxa uu sheegay
inuu Valverde uu sheegay haddii xilli ciyaareedkan uu 10 gool uu dhalin waayo uu jaajixi doono waraaqiisa heshiiska ee kooxda Real Madrid oo albaab ka bixi doono. Markaas waxaa leeyahay sirtaas waa ka dambaysa in Valverde uu sanadkan gool fara badan dhalay. Runtii waa xidig cajiib oo meel kasta la adeegsan karo. Waxaan aragnaa isagoo 6 ka ciyaarayo, bala daafac ka ciyaarayo, weerar dhexda hore meel kasta waa kaga ciyaari karaya. waa juhurad ay haysto kooxdaasi Real Madrid. Liverpool ay waxay hogaaminaysaa bacsiga loogu jiro Bellingham, xidigan da'da yar oo kooxa waaweyn oo qaaradaasi Yurub ay raadinayaan. Waxa hogaaminaysa kooxaasi Liverpool oo Jurgen Klopp waxa uu doonayaa inuu khadkiisa dhexe ku xoojiyo sanadka soo socda. Wareed baa sheegaya in 2023 uu Bellingham u diyaar yahay inuu kooxaasi Liverpool uu dhaqaaqi karo. Kloppna waxa uu doonayaa khadkiisa dhexe ku xoojiyo xidigani fantastic xirfada cajiibka leh. Runtii waxa doonaya kooxa waaweyn oo qaaradaasi Yurub ay ka mid yihiin kooxdaasi Real Madrid, waa la xirnay Man City, Manchester United, Chelsea. kooxaasi waaweyn ayaa runtii doonaya laacibkan iyo waa laacib aad u fiican oo kooxo dhani ay wada daydayaan. UEFA waxay soo saartay 12 xidig ee toddobaadkani ugu fiicnaa horyaalkaasi horyaalada ee Championka. waxaa runtii goolhaya loo doortay goolhaya kooxdaasi Sporting Lisbon Antonio Adana oo runtii wacdaro dhigay kulankii Tottenham ee ay 2-1 ka badinayeen. goolhayaas ayaa loo doortay goolhaya toddobaadkan ugu fiicnaa horyaalkaasi Championka. sidoo kale 5 daafac ee toddobaadkan ku soo baxay waxaa kamid ah Denzel Dumfries iyo waliba sidoo kale Stones oo kulankii xalay ee kooxdaasi Borussia la ciyaarayeen goolkii fantastic ah ee ka dhaliyay kooxdaasi oo kooxdiisa kula barbareeyay goolkaasi. runtii gool aad u qurux badan baxa Stones waa ku soo baxay. sidoo kale Joe Matip oo isaguna badbaadiyay kooxdiisa Liverpool oo ay daqiiqadii ugu dambeeyay gool ka dhaliyay. isaguna loo doortay Lucas Hernandez iyo waliba Bonton Maiter oo iyaguna ku soo baxay. khadka dhexe waxa uu hogaaminaya Valverde iyo Meto Politano, Robert Andrich, sidoo kale Sterling, Ferran Jutlah ayaa isaguna ku soo baxayo. waxaa digay runtii toddobaadkan ugu fiicnaa horyaalkaasi horyaalada ee Championka ee qaab ciyaareedka runtii aan caadiga ahayn ku soo bandhigay horyaalkaasi Championka. wakaasi UEFA waxay soo saartay 12 xidiga ugu fiicnaa waxaana uu dooratay runtii xidigihii toddobaadkan dhaqdhaqaaqa sameeyay ee saameynta ku lahaa kulamadooda ay ciyaarayeen. runtii waxay doorteen xidigihii sanadkan aad ugu fiicnaa. sidoo kale haddii eegno Lucas Hernandez oo kulankii Barcelona iyo Bayern runtii wacdareeyay oo u diiday Liverpool in Barcelona ay dhinacaasi goolkooda ay u dhaafto oo kamid ah xidigii dhibta ku noqday weeraryahanada kooxdaasi Barcelona ee u diiday in dhaafaanba. wararkeena ciyaar waa naga intaas saaxiibayaal, intaynu ku kulmi doono wararkeena kale. wassalaamu calaykum.